war qoraal oo lagu soo saaray xafiiska ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya ayaa lagu sheegay in madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi uu ogolaaday baaq uu soo jeediyay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed kaasi oo ahaa in la xoojiyo xiriirka wada shaqayneed ee u dhaxeeya Somaliland iyo dawladda federaalka Soomaaliya. warka qoraalka ee ka soo baxay dawladda Itoobiya ayaa waxa kale oo lagu sheegay in la xoojiyo xiriirka dhanka dhaqaalaha ee Somaliland iyo Itoobiya gaar ahaan arrimaha dekedaha kadib kulan dhex maray ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed iyo madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi. kulanka dhex maray ra'iisul wasaare Abiy Ahmed iyo madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa noqonayay kii ugu horeeyay ee ay wada yeeshaan labada mas'uul tan iyo markii labadoodaba la doortay. intii uu yimi xukunka Abiy Ahmed ra'iisul wasaare Abiy Ahmed intii uu yimi wuxuu furay jawi ayuu furay inuu gobolku integration galo mid dhaqaale iyo mid diblomaasiyadeedba oo wad ogeydo Djibouti, Eritrea, Soomaaliya, Suudaan intaba in yani baljawi cusub uu bilaabo runtii taasay la socotaa oo in badan baynu isweydiinaynay maxaa Somaliland ka reebay jawigaas maxaa ka reebay marka waxaan filayaa inay tahay dhamaystirkii sidii jawigaas looga dhabayn lahaa way sababtoo ah maxay haddii geeska Afrika qaybi dee oranayso qayb kale iyaduna iyo maladi karto una nasan karto dee geeskuna in badan buu holcayay marka dee waxaan isleeyahay hadda waqtigii ugu munaasabsanaa weeye. dawladda federaalka Soomaaliya ayaa iyaduna kadib warka ka soo baxay dawladda federaalka Itoobiya waxa ay soo saartay qoraal ay ku sheegtay in ay soo dhaweynayso in Somaliland ay aqbashay la shaqaynta iyo xoojinta xiriirka labada dhinac waa Somaliland iyo Soomaaliya iyadoo arrintaasi ay ku tilmaantay dawladda federaalka Soomaaliya tallaabo hore loo qaaday. hase ahaatee madaxtooyada Somaliland oo war ka soo saartay shirka ku dhex maray magaalada Addis Ababa ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed iyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxay ku sheegtay in ay isku afkarteen labada mas'uul in arrimaha Somaliland iyo Soomaaliya lagu xalliyo wada hadal iyo fagaare caalami lagana fogaado wax kasta oo keeni kara colaad cusub iyo xasarado hor leh oo ka curta Somaliland iyo Soomaaliya dhexdooda. dadka fahansan siyaasadda geeska Afrika ayaa sheegaya in Itoobiya ay daneynayso in ay door ku yeelato wada hadallada u dhaxeeya Somaliland iyo dawladda federaalka Soomaaliya. siyaabo badan oo imika wuxuu socdeen markaad ogtid xagga jihada ay u socoto Itoobiyada cusub waxa weeyaan in ay xoojinayso wada hadallada Somaliland iyo Soomaaliya in ay xoojinayso. Itoobiyana cidi ugama warroona waxa dhex yaala Soomaaliya iyo Somaliland sidaan sheegay waa igad sidaan dhinaca kalena waxa weeyaan waa quwad gobolka oo ay saameyn ku leeyihiin khilaafkaas haddii uu xasilooni darro keeno. marka waxaynu halka ka qiyaasaynaa waxa weeye inkastoo oo aan weli labadii wafdigii madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo Abiy Ahmed oo marti loo yahay wixii dhex maray inkastoo aanay war saxaafadeed wada jir aanay soo saarin laakiin warka hordhaca aynu ka eegino baraha bulshada ku suntan xafiiska ra'iisul wasaaraha halka waxaynu ka fahmaynaa in qodobada laga wada hadlay ay ka mid yihiin sidii xasilooni u dhici lahayd sidii loo wada hadli lahaa intaas ka muuqata hadda waana tilmaam wanaagsan weeye. wada hadallada Somaliland iyo Soomaaliya oo in muddo joogsaday ayaa wax hadda aad moodaa in ay socoto dardar cusub oo dawladaha daneeya arrimaha Soomaalida ay dib ugu bilaabayaan iyadoo Turkiguna uu dhawaan u soo magacaabay ergey u qaabilsan wada hadallada Somaliland iyo Soomaaliya. imika wax loo riixaya ayaa muuqda waxa weeye waa jihadii wada hadalka ayaa wax loo riixaya waxa laga cararayaana waxa weeye in conflict dambe iyo dhibaatooyin badan dambe oo keeni kara sidii bilo ka hor dagaaladii dhacay oo kale ayaa laga cararayaa oo aan cidna dan u ahayn. si kastaba ha ahaatee doorka cusub ee Itoobiya ku yeelanayso arrimaha Soomaaliya iyo Somaliland ayaa loo arki karaa in uu qayb ka yahay isbeddelka ka socda geeska Afrika taasi oo hormood u yahay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed. Khalid Fodadi
goobjoog hargeysa.